ilaahay wuxuu yiri qofka aniga iloowa naftiisana ilowsiinaya adigoo Soomaaliya oo gaaja oo baqtiyo duufka da'ayo ayaad ku sadaqaysanaysaa lacagta Yurub ceedha ka qaadatay lacagtii ceedha lagaaga soo diro adigoo Afrika jooga oo bil lagaaga dhigay ayaad koornaysaa waxaan ka siinayaa qayb Falastiinta waxaad ooyaysaa xaniya adigoo haddana inkaaraya Soomaalida kala oranaya reeraha waxba gama gelin munaafiqnimadaas iyo gaalnimadaas ilaahay baa kugu daawanaya maadaama aad gaalnimo ku dhawaaqday oo ilaahay ka fogaatay Turkigan aad u daba niikinayso oranayso waa walaalaheen wuxuu kugu gatay xabad roodiya iyo in yaroo biyaha ayuu gabi ahaanba maskaxda kaaga qabsatay oo maantana oranaysaa walaalahin Turkiga gaaja tahay walaaltinimada waxa weeye inuu ku dhiso isbitaal uu shaqaalihiisa ku xanuunsado ku daaweeyo iyo naagahan uu ka uurinayo 20 dollar ugu meherinaysay inuu caruurtooda ugu dhala xaggaas sidoo hadhow ku qabsado xaggo nimankii ku cadowga ahaa ee xitaa diin xitaa aad u aragtiin gaal inay yihiin uu ka xigsanaya uu sinaya droonadan hubka iyo casriga uu badda ka soo dejisanaya inuu ku dagaalo Soomaaliya iyo Suudaan ku qabsadaba oo iska hurudaa wadankaaga laga hubeenaya Ethiopia inay qabsato Suudaan sida dahabka uga gorato Turkidan aad oranaysaa aniga wax bay dhisayaan wax ka weyn baa lagu sameeyay qoortuun baa laga istaagaya xagga madaxdoodu kala qaybsanayso Afrika oo dhan oo adigana ku soo maraysa abaab ahaan ee gaaskaaga shidaalkaaga mineraalkaaga dahabkaaga wax walba oo baddaada ka soo baxaya samadaba gacanta ku dhigeen ee Afrikada kale u sii gudbayaan istaraatiijig ahaan roodiyar iyo biyo yar aad siisatay adigu beeran kari lahaydba madaxdii Soomaaliyeed wasiir ama xildhibaan ama madaxweyne wuxuu doonaa ahaadaba aad dooratay qabiil ahaan daba taagantay wuxuu ka niikinaya xalane kabilyeeri buu ka yahay cuntada uu dhigaya cadaanka iyo Yurubiyaanka iyo Carabtaba sida go'aam ugu gaadhaan adigina aad soo gali kareen dibadda lagu dharbaaxayo qaraxna ka dhici kareenba meeshaas maalinta ololeysigana niman madax gaari khatar ku socda oo indhaha xitaa ka eegi kareen meesha gaajada aad ku dhex jirtay ku qaybinaya cunto xun oo laga keenay Turkiga iyo sadaqa ahaan Sacuudiga iyo Imaaraatiga inaad bariis iyo qamadi ku cunti adigoo dhulka jiifa oo duufkaana ka muuqdo laba sawir laga qaato sidaana ku faraxdaa reerkaygii baa maanta madax noqotay adigoo gaaja oo meel dulliya oo ciqaab alle kugu riday ayaad maanta ku faanaysaa inuu nin aad isku reeratihiin ku yahay madaxdaada haddana uu yahay cadowgaaga run ahaantii bariiskii qamandidii iyo saliidda markay dhamaatana caruurtiinu wada tagaan xeebaha Liibiya iyo Yemen lagu guumaysto lagu adoonsado ee baddaas ku tuuraan dhimashana noloshu uga jeclaato kana wanaagsanaato inay Soomaaliya ku dhex baqtiyi lahaayeen gabdhaha Soomaaliyeedna lagu adoonsado iyo ko lagu fuulfuulayo guryo carbo xaggaad idinkuna wadankiina niman calalkunka soo gala u sujuudaysiin oo oranaysiin waxa weeye dadkii diinta Quraanka noo siday oo wanaaga noo wada ayagoo ku boobaya caruurtoodana wadankooga u tahriibaya bilaa qaamo bilaa sharci bilaa naxariis lagu kufsanayo la siineen inay xitaa warqad ku dhoofaan kaga baxaan wadankana jirinba qaarkood waligood la arkeenba inamada laga soo madax furay kufsigii adoonsigii Liibiyaanka markay galaan Maltaya Talyaaniga dabaajir noqdo suuqa meesha khashinka lagu turo sixday ko khamri iyo daroogo qaadanaya sida isku dhaafiyaan taraamada iyo dhibka ka soo gaaray oo san nolosha meel ay u dhaqaaqaan iyo meel ay garab ka helaan haysanba caruurta yaryar ee awoodin inay wadanka ka baxsadaan iyakana waxa musbaaro u dhiganaysa al-shabaab oo ku sasabanaysa lacag malaayiin ay ka soo qaateen hay'adaha Yurubiyaanka iyo munaafiqiinta inay ka siiyaan qayb yar ay ku gataan bariis iyo saliid sida reerkooda u geeyaan naftoodan u huraan qarxis ee ku leynayaan boqolaal dhaqaatiir iyo hooyoon iyo masaakiin tamaandha ku galaysa suuqa taas weeye Soomaalida maanta marka hamoodin nin walba Soomaaliya oo ganacsata ama siyaasi inuu dantaada wado wuxuu wadaa kaliya danta isaga jeebkiisa waxa weeye ciidamada ama kooxaha shadaadinta kamid ah adiga marka haddii aad leedahay waxaan kamid ahaanaya kuwa la dulminayo sida roodiyar u helaan oo nafta ka bixin oo ilaahina sida aan ku iloobayo waxaad ogaataa inaad dulmiga ku sii jiri doontii adiga iyo caruurtaadana waligiin aad aakhira iyo adduunka baliibaaneenba haddii laakiinse aad go'aansatay inaad mar un naftaada ilaahay u dhiibtin oo ilaahay tala saaratay oo dhehday anigu dadkan waxba kama rabiba ilaahay baa quudinaya oonad aamintay sida bani Israa'iil markii uu nabi Muuse la socday oo saxaarada looga quudinayo samada cunto la siiyo haddii dhab ka tahay aaminaada ilaahay isku dhib oo ku dhahay dadkan kula joogo dhan naga dareera wala cid aan u baahanay ma jirto cadaan iyo Soomaaliya qabiilba ana kaas ku filan ana ka istaagayna ilaahay baan isku dhibina haddii xitaa naga tagtay miyaan dhimanayna ilaahay soo noo balan qaadan inuu isagu noo quudiyo soo muuro isagu way arraxmaanka soo muuro aniga ayaa boqor ka ah adduunka oo dhan qof walba quudinaya meeshuu joogana ku og xaaladiisa isku dhib ilaahay haddaba hal la baqaysaa